laakiin ogow wiil yahow ogow gabar yahayna ogow wanaagaaga mustaqbalkaaga fiican inaad horumar gaadho in noloshaadu ay fiicnaato in waxa aad adduunka ani aakhira kama hadlayo aakhira waa ka wada warhaynaa nin walbaba aakhiro in waxa la baranayo iyo waxa la PhD-ka adduunka ugu weyn hadaad haysatid dhakhtarka adduunka ugu weyn hadaad noqotid meesha markaad ku dhimataa kugu dambeynaysa aakhira waxba ka tari maaya jannadan dhakhtar laguma sameyn hadaad dhakhtar tahay jannada shaqo ma ka helaysid wallahi shaqo ma ka helaysid لأن dadka jannada gala ma bijiranayan ba jirada bilaah hatta dadku jiran waay maxaa daaway wuxuu yiri ninka carabti wuxuu yiri masaa'ibu qawmin 'inda qawmin fawaid hada waxa dadka uu jecel yahay waa dhakhtarnimo maxay ku jeclaadeen leena jirada badatay dadku hadaysan jiran lahayn dhakhtarnimada way qiimo beeli lahayd Soomaa waxba lagu ma faleen marka dadku inay jiradaan faa'iido waxay u tahay dhakhaatiirta u tahay marka jannadan tagayna insha Allah jannada hal guri hal dhakhtarna kuma yaal nurse hatta meel la isku daawayo kuma yaal shaqana ka heli maysid meesha ay a'maal saalixa umba wax ku taraysa في الآخرة أعمال الصالحة وحكو تريسا إيمانك هذا صلاة هذا عبادة هذا قرآن هذا ذكر هذا أيه وحكو تري مركا علوم تن برنا إنسان هندسة واسده وكله إنجنير ده واسده وكله وحكى صوت برنا يسيد قبل الموت بوحكو ترموي بعد الموت وحكو ترميش اللهم إلا هذا ذو أديك ستو لعمل الآخرة والله إن اخترع وإن داوي إله درتي سداوي هذا لعمل الآخرة انجينير ما ركتي اسمك غيب قالي في سبيل الله مسجد لسي اما ضد وحو تري اما لعقته هلا قفشي هذا في سبيل الله ان شاء الله اخره وحو تريسا marka si aad u wanaagsanaato oo ilaahay ugu dhawaato bal marka ugu horeysa acmaasha saalixada ko faraa'ida salaada yeesan gogortan ka galin salaada waa cinwaanka kaliya waa madharka kaliya ee uu muujin karto maxabada rabbiga iyo inaad ku mahadnaqayso waa salaada hadaad ka tagto waxaad qiimo agtaada ilaahay agtiisa ka leedahay male waxa u maleynayaa YouTube kana waa ka aragteen waana idin ku soo celinaya bari baan oo taxi saaran meesha Masar leeyahay taxi ma gareystay ninkii taxi la ahaa salaada maghrib soo gashay ii jooji baan u joojiyay masaajidkii baan tagay waan soo noqday uu iska fadhiyaa waxaan warnay muslim ma tiid miya taxi aan soo foolay meeshii aan socdaa waxaan soo muslimatiin muslim bana alxamdulillah waxaan ma tukanina maxaa dhacay wallahi wuxuu yiri saad ka warayso waa shaqeeyayo maalintii oo dhan marka habeenkii markaan guriga tagaan salaado oo dhan isku dara yaani bikul suula iskii wax weyn buu ma arkaba marka su'aalan ku weydiinaya baan taxiga adiga ma iskale ma waan ku shaqeeyaa buu ninka aad u shaqeysaa muxuu ku siiyaa wuxuu yiri wuxuu siiyaa 120 gini ولعقت مسارده وشيابه بقول لي 20 جنيه والله عير ما اقان $10 $20 ما اقان وحساس هدي هذا الفير يعني ما مركا لا فير لعق اد ويروا ايو شيابه سؤال بان كويدينا يا بان مركا اني اورن كلا صلاه نكي كتغ عذاب بلغينيا صلاه قفك كتغ وا كافر انت وا لو شيء كلا لكن waxaan rabaa dhinaca maxabada ilaahay inaan ka soo galo waxaan kooydiinay anigu waxaan ka imid qadar soo ma taqaanina meel lacag badan laata بلد والعق بدن بتا waxaan rabnaa in hal il baan rabnaa in la naga gado yani il baan rabnaa in aan iibsano il labadaada indhood hal xabban ka gadanayna ada ikhtiyaar kugu dhaxay marka ishaasaan rabnaa inaan ka gadano lacagtana adiga uu sheego waxaad rabto milyan 2 milyan 3 milyan inta doonto laakiin anaga hashaas il uma ka rabnaa ninkii taxiga waday yani xanaaq meesha uu ka gaaray baabuurku waa joojin gaaray انت بتقول ايه والمحل ده يعني waxaan idii waxa halkan ku sheegay aanan agteena il u baahan marka ishaas laga rabaa in laga gato yani waxa rabtaan adiga lacag iska qaado hada yaabay wallahi wuxuu law bidunya kullaha adduunyada dhan hadaad siiso inaan ishayda ku siiyo wallahi inaan ku siinay basaasa aniga su'aalan ku weydiiyaan adiga adduunyada dhan kuma gadaysid soo maaha adigu meeqad ka bixisay ishan إنسان كبحث حر إله باسي ربنا اللي أعطاني إله باسي وحال إله بكسي سمها إله حكها بغاد الماء إلهي كوغن نعمي هل الكريمة هي لبا إن دوت كسي لبا إن دوت كوغو داري عافماتها كشغيسو كسي
shan goor ayuu ku yidhi hor istaag markiiba 10 daqiiqo in la eg waxaa tiri waqti kuma hayo kii 120 gini ku siinayayna $10 $20 maalintiina shaqadiisii baad u taagan tahay bal ka waran baarirta ma ku qabataa wallahi yarkii wuu taafuray isagii oo dhan baa isbedelay ilin baa indhihiisa ku soo joogsatay wuxuu yiri wallahi waa runta weligeena arinta kama fikirin waxaan ka ballan qaadayaa maanta laga bilaabo inaan salaad dambe waqtigeeda ka tagin waasaan ka rabaan wixii kale markaa u sii waday wixii shadiidka wixii dhaad marka dambe aan u sheegay in salaada ay khatar tahay marka sidaas oo kale idin la hadlayaan dhalinyaro dadaala aham shay salaada ku dadaala shanta salaadood marnaba gorgortood yeesay idinka galin wallahi thumma wallahi haddaad salaada ku dadaasho oo aad hagaajiso oo sida ilaahay jecel yahay aad u tukato ilaahay umuurtaada oo dhan waa kuu sahlaya wax ka halaabayana male maxaa yeelay allihina abuurayba wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri waالصalaa warkayga aan soo kookoobo laba shay baan markaa dardaarankayga kusoo dambaysiinaya waa midda koobaad cinwaanka waxaa la yidhi kayfa naciishu maca alqur'aan waxaan rabnaa qur'aanka inaan kulligeen aanu ahal u noqono ahlulqur'aan inaan noqono raalli horta ma ka nahay yaa raba inuu ahlulqur'aani noqdo gacantiisa ha taago kulligeen soo maaha ilaahu naga wada dhig ilaahu naga wada dhig ilaahu ahlulqur'aan naga dhig saddex qaybood baa leeyahay qayb waa xufaad qur'aanka ilaahay hore u xifdisay waa nugu jiraan soo maaha alxamdu lilah qaybna waa qayb hadda xifdinaysa oo wadadii qur'aanka barashadiisa ku jirta waana saan jecelahay kulligeen inaan noqono qaybta saddexaad waa qayb iyagu yiri anagu hadda mashquul baan nahay waqtiina ma hayno ama waxba ku mashquulsanahay iyagana arrin kale loo hayaa qolada qur'aanka xifdisay iyaga waxa laga rabaa wardi inay yeeshaan oo qur'aanka marnaba ayna iloobinayna ka tagine ugu yaraan 3 juz bay dhaheen dadka mutafanniniinta fanniga aan aad uga shaqeeyay 3 juz maalintii hal saac ka yar ama hal saac bay ka qaadanaysaa bal u fiirso kalaamullaahi ilaahay uu ku siiyey hal saac 24 saac miyaad u goyn kari weyday hal saac 3 juz ku akhriyo 3 juz 10kii bari mar dhammee ka badan haddaad ku dhammaysana fariid baa tahay toddobaad qofka qur-aanka ku dhammeeyana waaba mujarab waa la ogaaday wax hortiisa istaagaya oo caqaba oo kor imanaya maba jiraba dadka wardigooda toddobaadka qur-aanka ku dhameeya umuurtooda ilaahay waaba sahlaa wax hortiisa iman kara oo dhibaato ana maba jirtaba laa yumkin abadan kalaamullahi macahu haddaa 10 cisho ka dhigtana fariid baa taa waa fiican tahay kii isagu baranayay qur-aanka baranayayna waxaan ku waaninayaa khaasatan idinka fursa haysataan qofku markuu wadankiisa joogo oo eedooyin iyo habar yarooyin inta ku mashquulsan yahay waa mashquul laakiin markuu daalib yahay oo arday yahay waliba wadan qariib u joogo fursa badan buu haystaa haddaan shaydaan ugu soo dhuumanin alaabtaan iyo telefoonkan iyo whatsapp iyo facebook iyo waxaan waqtiga qaadan hadduu ugu soo dhuumanin waqtigii uu badnaa baad haysataa fursa haysataa fursadda ka faa'iideyso litacallumi alqur'aan wa xifdihi alxamdulilah macallimiin badanna waa leeyihiin dad badanna waa helaysaa qaybta saddexaad qur-aanka hadaynina qur-aanka ka hijroonina ninkii mashquulsan ama la anigu ma xifdin karo ama xifdi hadda waqti uma hayo wardi samayso maalintii hal juz akhri bishii mar dhammee qur-aanka wehel u noqo qur-aanka saaxiib ha kula noqdo barako ku noqon xifaadu ku noqon acdaa fara badanoodan arkayn baa ilaahay kaaga ilaalinaya noloshaada ilaahay ku hagaajinaya umuurtaada ilaahay kugu toosinaya wardiga qur-aanka yeelo oo ha ka tegin weliba haddii alla ku waafajiyo oo fariid wanaagsan aad noqoto oo muxibbun lilaahi walirasuulihi aad noqoto habeenkii kac oo qiyaamuleyl tuko oo juska ku tuko wax weyn baad ilaahay agtiisa aad ka helaysaa dardaaranka qur-aanka waa iga intaa aynu ku wada dadaalno dardaaranka ugu dambeeya waxaa weeye addacwa ila allah diinta ilaahay in aad rusul u tihiin ilaahay idinka idiin diray rusulu rasuulillahi inaad tihiin oo nabi moxamed sal allahu alayh wasalam niyaabadiisa aad taagan tihiin oo mashriqan waa maqriban dadka jooga dadkaa aada la nooshihiin ee gaaladahan muslimiinta ahayn inay islaamaan dadka laga doonaya idinka waaye idinkaa laydinka doonayaa waa inaad ka walwashaa waa in cala alaqal qalbigaaga ay ku soo dhacdaa naxdin aad u naxsan tahay dadkaani haddii ay adduunkan ka tagaan meesha ay ku dambayn doonaan marka inaad ka walwashaan ood ku dadaashaan inta tabartiina inay islaami lahayn idinka dhexdiinnan isku dadaashaan
oo inaga dhexdeena waa laga yaabaa in ninka saaxiibka ah ama maaragtay jaarkaaga ama meel wada degantihiin salaadiisu ay galab tahay adiga inaad daaci noqotid oo khayrka dadka ugu yeedhid ayaa lanaga doonaya tawfiiqda allahna waafajiyo dambigeena allah dhaafo kii waalidiinteennana allah dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa intaana meesha isugu timid in ilaahay mid walba muraadkiisa oo ilaahay raalli ka yahay allah gaarsiiyo muraadkiisa oo ilaahay raalli ka yahay allah gaarsiiyo muraadkiisa oo raalli ilaahay ka yahay allah gaarsiiyo mid walba tacliinta allah idin fududeeyo تعلينتاد برانيسان الله يدين فضي تعلين الدينتين ugu khidmaysan Allah idin ka dhigo تعلين الدينتين ugu khidmaysan Allah ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa naaficiin fi dunyaakum wa aakhiratikum ila noqotaan baarin bil walidayn ila noqotaan in aad wadankiini aad ka timaadeen baraka dib ugu la noqotaan taasaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay wadankeennina waxaan ka baryaynaa nabadgelyo inuu ilaahay dhex dhigo rafaadka iyo dhibaatada iyo qaraxa iyo balaayada in ilaahay ka dulqaado dadka walaalaheena lanoo sheegay ilaahay inuu naxariiso wixii dhintay waxa dhaawacana inta dhaawacana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caafiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh ilaahay waxaan ka baryaynaa colaada iyo rafaadka iyo dhibaatada ilaahay inuu naga dulqaado in ilaahay barwaaqo iyo khayr iyo nasiyo in ilaahay jalla jalaaluhu muslimiinta meel kasto joogta way dhibtaysan yihiin dhibta ilaahay ka faydo ayaan ilaahay ka baryaynaa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayr